Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaashayda qiimaha qaayalo meel kastoo caalamka ka joogtaan kusoo dhawaada shabakada wararka ee Selac 24 maanta waxaan idiin haynaa faallo gaaban oo ku saabsan madaxweyne xasan iyo madaxweyne farmaajo keebaa dowladnimada fahansan oo garanaya dad fara badan oo Soomaaliyeed waxay isweydiinayaan madaxweyne xasan oo muddo sanada hadda joogay miidiyada ayuu soo hor fadhiistay ama saxaafadda su'aashii la rabana uu ka jawaabay waxaa laga yaabaa inay kalsooni tahay madaxweyne farmaajo 5 sano ama 6 sanadood uu hayay dad fara badan waxay isweydiinayeen halka loo socdo iyo Soomaalidii maxaa kala irdhiyay laakiin dadka qaar baa aaminsanaaba in madaxweyne farmaajo uu yahaa qofkii kaliya ee 30 sanadood soo maray ee dowladnimada fahansan saaxiibtinimo badanna adduunka u sameeyay dadka dhaliilana waxay lahaayeen maaha madaxweyne loo baahnaa laakiin baladan si yar oo kooban ku soo koobaba madaxweyne xasan intii uu talada dalka hayay 800 kiiloomitir ayuu wuxuu ka xoreeyay dadkii sheegan jiray inay al-shabaab yihiin waxaan u qaaday qorshe ugu tala galay deegaanadiisa inuu ka xoreeyo al-shabaab laakiin madaxweyne farmaajo isaguna fursad la mid ah helay 6 sanadood halkee buu ka qabsaday muxuu ka xoreeyay qarannimadii la soo celiyay mid noocay ahayd ma mid Soomaalinimada lagu aamusinayay ahayd ma mid dadka la iskugu dirayay bay ahayd mise mid dadka lagu walaaleynayay bay ahayd dadka madaxweyne farmaajo dhaliila siyaasadiisu waxay ahayd u sii aamus mid ku soo ururtay oo aan doonaynin inuu dal wada tashanaya madaxweyne ka sii noqdo laakiin dal uu isagu u taliyay keligii inuu madaxweyne ka noqdo taasina waxay burburisay rajadii dadka Soomaaliyeed ay ka qabeen in dawlad lagu naalan kara ay dhalato madaxweyne xasan oo khibradiisa siyaasadeed uga faa'iideysanaya siyaasadihiisii hore ka khaldamay waxaad moodaa inuu imka ku soo dhacay jarihii iyo wadadii loo baahnaa ee dawladnimo inuuna wax ku noqonaysay dadka deegaanada Soomaaliya degan waxay baahi u qabeen ama shayga ugu weyn ee u baahnayeen ay tahay nabad sidii loo heli lahaa waana taa waxa kaliya ee dawladnimadu ay xaqiijiso marka laga reebo diyaaradaha la raacayo oo labadooduba ay ka sinaayeen in caalamka diyaaradaha u raacaan mid badal u tago laakiin su'aasha dad badan isweydiinayaan waxay tahay dawladnimadu ma in dadka lagu caburiyo oo lagu aamusiyo oo saaxiibo u nacamlaya qofka uu ku samaystaa mise dawladnimadu waa inay guryaha gaadhaa oo dadka noloshooda wax ka bedeshaa dad fara badanna waxaan filayaa inay su'aasha jawaabteedii hayaan